كوبع رادينتا يوروب iyo Soomaaliya ayaa ah mowduuca rabina maanta salsalaaxo. كوبع رادينتا waa mowduuc aad u baaxad weyn balse waxaan rabaa inaan ka yara taabto shaqo raadinta iyo ilaalinta wadanka. Tan goodan ku hormaro shaqo raadinta oo waxa ugu horeeya qofka bini'aadamka inuu ku fikiro ay tahay hadduu rabo inuu horumar sameeyo. qof aan shaqaysanin wax ma qaban karo waa qofkii inuu naftiisa ka soo baxo asi ismaareyn karo wax qabsan karo markaas kaliya ayuu ku fikiri karaa meelo kale inuu wax ka qayb qaato. nabiga calayhi salaatu wasalaam oo fadhiya ayaa waxaa soo maray nin aad u xooggan dabeetana saxaabadii meesha fadhiday rag ka mid ah yidhi low kaana hada fi sabiili illah hadduu arrinkani ahaan lahaa xooggan iyo lagu isticmaali lahaa ilaahay jidkiisa iyo jihaadka khayr bay ahaan lahayd bay tilmaamay dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi haddii uu carruur yaryar ka yimi oo uu iyaga quudkooda u dadaalayo jidka ilaahay buu ku sugan yahay hadduu laba waalid oo gaboobay ka yimi oo iyaga uu dadaalayana fii sabiili illaahi buu ku jiraa haddii uu ordayo lafihiisa inuu dhowrto oo isagu laftiisa oo qura inuu nafaqeeyo uu socdana fa huwa fii sabiili illaahi buu nabigu yidhi idan xadiidka nabigu wuxuu inoogu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofku inuu xoogsado aanu wax baryini inay ka mid tahay fii sabiili illaahiga diintu sheegtay qofku inuu xoogsado oo aanu noqon qof wax baryaya baahida badanina daraasaadka iminka sameeyaan qaar ka mid a waxay tilmaamaan carruurta ku korta bay yidhaahdaan qaybaha faqriga ah statisticsku waxay sheegayaan bay yidhahdaan 25% inay jaraa'imta dadka gala noqdaan halka bay yidhaahdeen kuwa guryaha qanigaa ku kara 1% uu ka yahay waa daraasa ay meel ku sameeyeen waxay kaloo tilmaameen daraasaad ay samaynayaan jariimada ay dadku galaan bay yidhaahdaan boqolkiiba 8 يعني 9 wax ku dhodhow jaraa'imta la galay oo dhan sababteedu inay ahayd xoolo raadacayn idan in la xoogsado laakiin maalka dariiqo sharciya loo xoogsado ayaa waxa mudnaantana leh. shaqo raadinta marka ugu horeyso qofka inuu shaqada raadiyo markuu shaqo raadinayana meelaha wadamada caalamka ku kala duwan yihiin inkastoo Soomaaliya mar hore ugu dambeysay Yurubtan aan joogo marka shaqo raadinayso iskama helaysid marka ugu horeysa aad dalbato shaqada waxa suurtagal ah marka hadda dalbato in lagaaga soo jawaabo isbuuci kadib hal isbuuc laba isbuuc kadib inaad jawaab hesho ah in lagugu waco in lagu wareysto khibradaha iyo waxa aad taqaano in lagaaga faa'iideysan karo shaqadaani waxa suurtagal in lagu siiyo waxa suurtagal in lagu siinin oo qof kale lagu dhaho ayaa kaaga soo horeeyay booska ama qofkaas ka khibrad badan booska ayaa buuxiyay laakiin inta badan shaqooyinka wajigarad ayaa lagu helaa sida Soomaaliya ka jirtaba oo wajigarad loogu helo intana wajigarad waa lagu heli karaa laana waxa soo maraysa shirkado kale oo ka shaqeysto inay dhexdhexaadiyaan dalaal amal ah qofka shaqaalaha iyo shirkada loo shaqeynaya inay u dhexdhexaadiyaan oo si shaqadaas lagu siiyo iyaga dhankooda laga soo siiyo ilaa shaqo toos ah way adagta inay hesho gaar ahaan hadaba tahay qof ajnabi ah Soomaaliya sidoo kale adoo ajnabi ah wadanka ku nool ayaa shaqadii wajigarad maxaa keenay ajnabi matiid laakiin qabiil ayaa booska ajnabiga galay tolkaaga qabiilka hadee meesha magac iyo tayo ku lahayn waxa suurtagal ah inaad shaqo weysid ba shaqo abad ba helinba waana tan dhibka keenayso wadanka inuusan horumarin in tol loo fiiriyo tolkaasi kaliya inta ka mid ah biskili shaqo la siiyo inta kala dhaho shaqo idima hayno waana qofkan qof jaamacad ka soo baxay wax bartay oo aqoon badan haysto aan suurtagalin aqoontiisa in looga faa'iideysto tolka iyo qabiilka waxa loo sameeyay in la isku garto la isdhaxgalo bulshada isku dhex fahanto ma ahan in tirada lagu badsado ee waa tayabadsi ayaa loo baahan yahay tayada in la badiyo kobcinta wadanka ma ahan tirada iyo qabiilka iyo tolka in la badiyo lagu faanfaano. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون مدة كالي أو ilaalinta wadanka ilaalintiisa
qofka asiga ayaa la rabaa inay kasoo go'do inuu wadanka ilaaliyo. Wadanka horumarkiisa waxaa lagu gaari karaa qofka markuu asiga ka go'aansado inuu wadankaani ka qayb qaato ilaalintiisa. Ilaalinta dhan kastay noqon kartaa, xagga ha noqoto qalabyadii iyo wixii la sameeyey inuusan jijibinin, ama inuusan wasaqaynin, ama inuusan cadow oo kaashanayo oo wadanka uu adeegsanoo burburinin. intaas waxay noqonaysaa ilaalinta wadanka. Wadanka inaa wixii ka khaldan aad saxdo, wixii dhiman aad dhamaystirto. Kobcinta inay sii jirto waqti dheer sii qaadato waxaa ka qayb qaadan karo dadka dhan inay u arkaanba waxaan la soo sameeyey wanaaga ah inay ka wada dhexayso ay tahay inay wada ilaaliyaan. dhammaan markay ay arkaan qof waxii la sameeyey halaynayo ama wasaqaynayo inay gacan qabtaan oo dhahaan waxaan waa wada leenahay, hanaga halaynin wadanka annaga iska leh, wadankeenina kobcino ayaa loo baahan yahay. marka Yurub joogto oo kale waxaa arkaysaa shaqada dhexdeeda ama dibaddaba labada marba dadka aad la joogto way ku kontroolayaan. mararka qaar waxaa dhici karta shaqada aad ka shaqaynaysid, qaabka u gudanaysid inay ku fiiriyaan. saas oo kale ayaa loo baahan yahay markii dibadda la joogana daaqadihii oo kale laga kontroolaya, lagu fiirinayaa. qof cilad yar lagu arko laga dareemo isla markii dowladda la xiriiriyaa si loo saxo ciladaasi. marka saas oo kale ayaa waxay ka qayb qaadanaysaa kobcinta inay waarto sii jirto wadankana horumarkiisana uu saas u ballaarto.